السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo filing statuska. Marka filing statuskan waxa waa ilaa iyo 5 ayaan aaminsanahay. Waa single, waxa waaye head of household, waa married filing jointly, waa married filing separate, iyo waxa waaye qualifying surviving spouse. midkan waxaa la dhihi jiray widow or widower, laakiin hadartan waxay u bedeleen I think sanadaha dambe dhanba qualifying survival spouse ay bixiyeen ama ay ugu wacan. Marka shuruudahan waxa waa qof kasta markuu taxiga buuxsanayo intaan uu ku buuxinayo mid kamid ah, waxaana marka mid kastaba deductionka koowaad oo lacagta laga goynayo ayuu faa'iido leeyahay. markii koowaad intii laga goynayo ayuu qofka kaga faa'iidaya marka taxiga. shuruudaha koowaad waxa waaye waxaan ka soo qaadaynaa sida hadda single-ka. qofka single-ka markuu taxiga buuxsanayo waxa waaye midda koowaad waa inuusan guur soo marin, uu yahay unmarried, waa inuu yahay maxaa la dhihi jiray single caadi uu yahay, divorced inuu yahay. marka waane intaan waxa waaye marka sanadka dhammaadkiisa marka meesha December 31st lagu gaaro inuu statuskan mid kamid uu qofka yahay ayuu single-nimo ku buuxsan karaa taxiga. qofkan qasab maaha marka inuu dependent lahaado, waayo asaga keligiisa iska buuxsan karo dependent la'aan, waayo dependent like waajib kuma ahan. marka taxiga deductionka koowaad waxa waaye ama lacagta koowaad asaga laga deduct gareynayo markuu buuxsanayo waa 14,600. lacagtiisa markii la xisaabayo intii taxiga iyo refundkii waxyaalaha la isla gaarin intaana laga goynaya. marka kadib ay waxay maraysaa in loo xisaabo taxiga iyo maxaa la dhihi jiray lacagta intaan markii laga gooyo intuu shaqeeyay ayaa taxable income-kiisa la xisaaba, markaas percentage lagu dhufana. laakiin inta hore waa inuu shuruudahan qofkan buuxiyo. marka standard deduction-kii uu ku buuxsanayo waa haduusan itemize ku buuxsanaynin waxay noqonaysaa intaan ay usoo noqonaysaa. qofka ku xiga aan fiirinayo waxa waa marka qofka married filing jointly. qofkan marka asagana kuma ahan shuruudaha koowaad horta waxa waaye waa inuu guur ama xaas qabo. marka waxaa jirto xaas mid maxkamadda iyo wax la tagayo mid oo stadiyo ogol inay labada qof ay is qabaan oo la dhihi karo labada ma is qabaan, waayo waa la isku arkay way isla deganayeen adiga 4 shuruud inay buuxiyaan sida uu state-ku u ogolaado marka inay kana sidii laba qof oo is qaba ahaan loogu tixgeliyo. guurkoodana marka waa inay by December 31st iyadana labadan qof waa inay yihiin laba qof oo is qabaan. hataa hadday noqoto kasoo qaadba sanadkii dhan ma is qabin laakiin waqtigan ay isguursan still waxaa loo xisaabayaa marka laba qof oo is qabto. ayakana dependent marka qasab may ku tahay qofka dependent way haysan karaan oo way claim gareyn karaan mana claim gareyn karaan. dependent hal faa'iido leeyahay, faa'iidada dependent-ka leeyahay marka waa credits oo hadhoodii lacagtaada maxaa la dhihi jiray lacagta kusoo laabanayso xoogaa faa'iido kugu soo celinayo, ama marmarna waxa waaye wixii lagugu lahaan lahaa hoos u dhibaya, ama waxa waaye lacag ayaa kusoo laabanaysa. markuu qofka statuskan ay ku buuxsanayaan standard deduction-kooda waxa waaye 29,200. qofkii haduu shaqeeyo tusaale adi 60,000 already lacagta taxable income-kooda wuxuu noqonaa marka 30,000 meelaad 59 marka intaa laga gooyay 30,000 ayuu qofkanba u noqonayaa maxaa la dhihi jiray taxable income-ka. intaana marka waxa waaye inta xisaabta lagu dhufanayo si lagu ogaado refund iyo inta kale inaad leedahay wax kale. waxaan ku xijinaynaa married filing separate. midkan badana waa midka ugu nasiib daran markii taxi la buuxsanayo, waayo waxyaalo badan oo dependent iyo waxyaaladaas faa'iido badan kama helaysid ama credit-ka
horta shuruudaha marayna asagana waa inuu qofkii uu yahay maxaa la dhihi jiray married asagana December 31st ama waa inay markaas isguursadaan ama waqtiga sanadka markuu halkaa marayo waa inay loo aqoonsan yahay inay isqabaan. marka qof midkan spouse kasta gooni u buuxsanaa marka kasoo qaadba ninka ama gabadhii haday markaa hataa haday kala buuxsadaan iyada naftirka shuruud kala sii raacayso waxa waaye hadduu qofkan item ay sameeyo qofka kalena waa inuu item ay sameeyo, hadduu qofkan standard deduction isticmaalo qofka kalena waa inuu standard deduction isticmaalo. So sinu iskugu xiran yihiin sinu ay u kala buuxsanayaan. marka faa'iidada la helayo ama credit-ka badanaa qofkan uu helayo waa limited. So lacagta marka oo ayakana ay tahay standard deduction kooda waa 14,600. waxaa ku xigo head of household. qofkan sharuudihiisa markaan fiirino marka waxaa waaye waa qof unmarried ah ama loo aqoonsan yahay inuu unmarried yahay. qofkan marka head of household ka ku buuxsanayo tusaale lacag ka soo qaadba qof ay isqabaan ama xaas uu leeyahay ama gabadha odaygeeda ayaa joogo 6 bil oo ugu dambayso inay isla noolaadaan ma wala inay kala addressiin ama aysan isla nooleen sidii qof kamid ah uu head of ama odaygu head of household ugu buuxsado ama maamada head of household ugu buuxsato waana inuu bixin karo maxaa la dhihi jiray shuruuda saddexaad oo qofkan la rabo inuu buuxiyo waxa waaye boqolkiiba 50% ka badan wixii guriga costiga guriga inuu qofka asaga bixinayo. shuruud kale oo dheeraada marka jirto qofkan waxa waaye waa inuu haysto dependent. qof dependent uu ku buuxsanayo waa inuu guriga u joogo sidaa darteed dependent kan uu guriga degan yahay adiga ka badan 183 bari. So kan lacagtiisa oo standard deduction kiisa marka waa 21,900. So far waxa ugu badnaa maxaa la dhihi jiray married filing jointly kan ana ku soo xigo. And then midka ugu dambeeya waxa waaye waa qualifying. midka ku xigo waxa waaye qualifying survival spouse. midkan waxa waaye ka soo qaad sanadkii uu qofka spouse-ka uu dhintay sanadkaas wuxuu ku buuxsanaa married filing separate married filing jointly I believe sorry. laakiin sanadka ku xigo inday 2020 uu kan baashas ku buuxsaday 2021 2022 labadaas sano oo sanadkii maxaa la dhihi jiray spouse-ka uu dhintay labadaas sano ku xigta wuxuu buuxsanaa marka qualifying survival spouse. lacagta marka kanne isana faa'iida uu leeyahay xagga standard deduction kiisa waa 29,200. waxaa kale waa kan ii sheegay inuu title-kan labadan sano ku xigo buuxsado waa inuu spouse-ka labadan sano sanadkii ka horeeyay uu geeriyooday. midda kale waxaa u raacsan waa inuu gurigana asaga maxaa la dhihi jiray costiga guriga waa inuu asaga cover garaynayo waana inuu maxaa la dhihi jiray dependent una leeyahay. So midkan iyo midkanba dependent ku xiran waa inaad dependent haysatid kuwa kale laakiin dependent kuma xirna. marka dependent-ka insha Allah ka hadli doona waana laba nooc ay kan u kala baxayaan qualifying relative iyo maxaa la dhihi jiray qualifying child. insha Allah taala movie-ga maxaa la dhihi jiray video-ga kale kaasaan kusoo sharxi doonaa.